madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan golayaasha qaranka ganacsatada iyo dadka ehlo sharafka ee halkan fadhida taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sharaf bay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladan runtii lagu diirsaday oo dadka reer Soomaaliland gaar ahaan magaalada caasimadda ah u abuurtay yididiilo badan oo ah inay biyo ku filan helaan anigoo garan kara ama og inaanay dadku boqolkiiba boqol biyuhu weli gaadhin laakiin haddana waxaa lagu socdaa wadadii ay ku wada gaari lahaayeen biyuhu maareeyaha sidaa loo ammaanay ayaanu arkaa in hawshiisii ka soo baxay mudane madaxweyne guud ahaan biyaha infrastructure-ka biyuhu waa qaali marka loo eego dadku marka aad institution-ka aadan xogogaal ka ahayn oo la yiraahdo biyaa la samaynayaa qofku maskaxdiisa wax geli kara ma aha qiimaha biyuhu leeyihiin tuulada 200 ee qof jooga waxay u baahan tahay 500 oo kun oo dollar oo biyo ah inaad ku bixiso infrastructure-kooda 500 oo kun oo dollar haddii iskuullada loola dhaqaaqo 50 iskuul bay dhisi kartaa oo kala gaara in ka badan ama 50 MCH ama 60 ama 70 MCH bay dhisi kartaa marka 500 ee wasaaradda biyaha loo dhiibo iyo 500 ee wasaaradda waxbarashada loo dhiibaa waxay aad iyo aad dadka u taabanayaan 500 ee wasaaradda waxbarashada loo dhiibo tan 200 oo qof ayaad ku waraabinaysaa infrastructure-ka biyuhu ama qalabka biyuhu waa wax aad u qaali ceelka riiga ahi marka infrastructure-ka yar ee lagu cabo iyo taangiyada loo sameeyo waa close to 300 oo kun oo dollar oo aan magaalada loo jiidin marka riigana la kireysanayo aad waxaan ugu faraxsanahay in riigani uu wax ka bedeli doono baahida wakaaladda meelo badanna looga ergisan doono oo dalka ka mid ah maadaama uu riig qaran yahay runtii waa wax loogu faano haddaan dalka 4 magaalo ama 5 magaalo afarta magaalo ugu waaweyn dalka maadaama madaxweynihii fadhiyo biyuhu aad bay meel fiican bay marayaan wakaalad aan korin iyo infrastructure biyo oo aan dalka korin ma jirto bilkulliya si weyn bay u koreen xaaladda dalka waxa ugu oomanaan jirtay meesha la yiraahdo gobolka daadmareed ayaa ugu oomadnaa Somaliland 22 dhaam ayaa laga sameeyay xalayto riboodkii aan daawanayay ee aan caawa waxaan ka hadli doonaa barkulanka Somaliland wasaaradda biyaha ayaa ku casuumay film documentary oo weyn baa la sii deyn doonaa wasiir ku-xigeenka DG-ga iyo dhammaan agaasimayaashu way hadli doonaan dalka sida wax looga qabtay biyuhu sidaas wax badan waxa aad looga qayliyay meesha la yiraahdo Boorame xukuumaddu waxay xaqiijisay inay magaalada Boorame 25 sanadood ee soo socda hadda la dul dhigay biyo iyo qorshe iyo lacag ku filan intaba berbera iyadoo laga fakarayo dabeecadda nololeed iyo kulaylka biyaha iyadoo laga fakarayo maalgashiga dalalka shisheeye iyadoo laga fakarayo joogitaanka shirkadaha waxay xisbiga kulmiye ugu yimi 3 ceel oo dhaadheer oo aan magaalada berbera ku filayn maanta waxaanu ka taagnay 26 riig ayaanu isugu xidhnay waxaanuna ku celinay inaanu xoolihii dib ugu samayno biyihii dubaar si aanu u xaqiijino dadka iyo xoolaha u kala duwan waa run dadku ma jecla ma oran karo afkayga kama soo bixi karto
waxaanan meel ka qaban ayaanu wax ka qaban dadku maanta waa ay tusoo taabsi waa documentary film meel yaala tuulada aan iraahdo waxaas laga qabtay macnaheedu waxa weeye waxaas laga qabtay qof hadal aan meesha jirin sheegi kara ma jiro erigabo hantidii ugu badnayd ee extensionka magaalada loogu sameeyo biyaha khasnada dawladda laga bixiyay waxay hadda erigabo u diyaar tahay in kick off la dhaqaajiyo dhammaan biyaha deegaanka wasaaraddu ku talagalkii xisbiga kulmiye oo madaxweynuhu ku dhawaaqay 17kii markii la dooranayay wixii la qabanay boqolkiiba 250 in ka badan bay qabatay oo documentary oo la taaban karo soo bandhigayna hadduu yiri madaxweynuhu intaas aanu qabanaynaa 150 baanu ku darnay ka badan haday dhaam tahay iyo haday ceel la qodayo tahay waxaan leeyahay dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogto gees to gees haddii aad rabtaan xukuumad wax qabad ah oo wax idin qabanaysa soo celiya kulmiye oo kulmiye doorta waaye badan baan soo joogay meel badan baan soo joogay gudoomiyaha xisbiga murashaxa xisbiga wadani 12 sanadood buu aniga gudoomiye ii ahaa musabbixina 7 sanadood baan wasiir ah tasawir iska leer keeba dalka wadi kara soo nin kelmad ka oran kara may haddii nin 12 sanadood soo xukumay ninna 7 sanadood soo xukumay miyaanan kelmad waaye aragnimo ka oran karin horta xaq mawleeya 34 sanadood baan Soomaaliland dhisay nin wax tilmaami kara miyaanan ahayn إذا وحكي شيء ما لكن وهي بدنية وقت بدن بسومالي لا سجية أو ميرا بدن كحيرة وهي بدن بسجية آذ بان دين سلامة يا